السلام عليكم وعبد الرحمن قرحنت قريها ما أنت وحنا توصيا فيديو عن أوجهي إنه آديين أنفعيه أو سيدا وول بيبر كله جتشرو دربي أنت وراك حبق لمريو دربي الجولة شيء أو كسته ده لاين بيبر تي أما وول بيبر وحنا توصيا سالو جتشرو وليبا هكذا natural car because normally واحد سميان صمد قوليدو normally waxay sameeyaan steamer bay isticmaalaan laakiin Soomaalidu waxay taqaanaan shortcut kama garanaysa sida garanaysa ugu dhibka wax loo sameeyo laakiin ma fahansana marka steamer isticmaalayso steamerku chemical buu sii daayaa radiation buu leeyahay caafimaadkaaga uma fiicna laakiin Soomaalidu laba layer buu wall bay kasta leeyahay somaha waa intii sare oo normally waxa weeyaan silk oo biyuhu maga iyada dad istiraahdo wax mari ma qabanayaan somaha okay marka hore waxaad jaraysaa silkiga samo jartay erada سامر تفسيركي سمعت maxaa soo haraya layerkii hoose soma marka sababtu waxa weeyaan ID waxa weeyaan halkan aan idin tusaya natural ama sida saxda ah ee ku keenay chemical lahayn laakiin ka yaraayn walibana aan anigu isleeyahay way ka dhaqso badan tahay haddaad barato waxa weeyaan technique aan ku bartay anigu dhismaha markaan ka shaqeynayay buildinada commercialka oo dad ka bartay marka aniga ka khibrad dheer waqtiga waxaad isticmaalaysaa marka uu layerkan ku soo haro biyo kulul ama biyo diiran iyo maro garanaysa biyaha aad baad uga tuujinaysaa aad uga tuujinaysaa dhexdhexaad uga tuujinaysaa biyaha ku haran laakiin biyo yaanay ka daadanin yaanay noqonin biyo saa uga daadanin ma ku leeyahay sidaas oo marka tiraahdo halkii ay ku hareen layerku ayun baad soo marinaysaa layerkii labaad eegata waxaad iska ilaalinaysaa biyo inay daataan haddii ay waayeen jiraan ama meeshii dabka kale always tape adag iskaga xidh si haddii ay biyo yar ka daataan oo kale biyaha aanay gaadhin korantadii ma garad okay waxaan tusayaa colorka maaragtay inuu isbedelayo colorku soo color change waa inuu color change sameeyaa mar hadduu colorku isbedelo waxa weeyaan xabagtii ayaa activation sameynaysaa waa brown bay noqotay soo halkan waa cadday micnaheedu halkan waxa weeyaan weli xabagtii soomay ku fahan ya weli xabagtii baa aad ugu dhagan marka halkaas oo kale biyaha hadana mar labaad kula noqo bahasha daawadayaal waxa isu haya warqadan iyo derbiga waa xabagta u dhaxaysa xabagtu markay qalasho waxay noqonaysaa hal mid oo adag oo magarasa derbiga isku haysa bahasha markaynu tan jarayno micnaheedu waxa weeyaan inaynu sameeyno inaynu xabagtii activation ku sameeyno sidii markii ay qoyreedo kale dib aynu u qoyno xabagtii fahan ya steamer-kan uu kuliyay somaha haddaba steamer-ka waxaynu ku bedelanay biyo kulul iyo maro waa natural caafimaadkaaga kuma aha hazardous ama kuma aha uma xumo ma garatay imkaan ku tusaya haddaba daawo girgirkoo kale somalia already somalia ilaag waxaan shiidkan dhanin ayarba iska soo wada go-aysa eeg soo arkimays gebigeeduba eegad xabagta bahashaadan fiberkaagan gacanta ku hayso iyo dhulkaaga dhicin sababtaan kuu sheegaya waayo xabagtii baa ku dhegan flooringkaaga oo kale kaa xumeyn kartaa saad aragtiinba daan dusha kaga soo bilow sidoo kale eeg meeshii imaka qaladashay meesha qalaloo dhani ma soo go-ayso ama aanay biyuhu gaadhin oo dhani ma soo go-ayso gacantana waa isticmaali kartaa anugu normally saasaan u dhuftaa way iga badantay bahashana waa isticmaali kartaa oo saasa bad ka odhan kartaa gebigeeda laakiin markaa dhulku kaaga dhacdhacaya fahan ya waxaan diidayaana waa inuu dhulka kaaga dhacdhaco soo arkimaysid kakada imika maxaan ku jaray derbiga intaasoo dhan maxaan ku jaray halkaasi ma soo go-ayso eeg tusaale tusinaya halkaasi ma soo go-ayso haddaad istiraahdo bahashan ku jar amaba tan ku jar bahasha xoog ku jar oo maanta dhan saadhe sooma go-ayso waayo xabagtiiba weli activation aan samayn imika xabagtii saad aragtaan waa tan waxana waa xabagtii dhinaca brownka ka ah waa xabagtii soo madar sababta la diiday in dhulka ku dhacdaan floorkaagan oo kale hadday saa ugu dhacdo wada xabag buu noqonayaa xabagta floorkii bay ku dhegaysaa goordhow inaad xoog uga xoqdo biyo ku lagu xoqdo marka shaqooyinkaasi aanad isuguba gelin always markaad samayso iska sidan aan samaynayo gacanta ku hayso first layerkii wallpaperku waa kaas intii ka go'day layerkii hoosena waa kan daawadayaal waa cabdiraxmaan qurxinta guryaha oo maanta idin tusayay sida ugu dhibta yar wallpaperka loo jaro expert tips baan idin siinayaa waxyaabaha aanay dadku ogeyn
channelkana micnihiisu waxa weeye ama sababtaan u sameeyey inaan idinka faa'iideeyo waxyaabo badan oo dadku aan ogeyn idinka faa'iideeyo insha allah markaa subscribe tahee igula meerayso shirkadda loo qiray ka qayb qaado waa qurxinta guryahee wayarukaan subscribe-ka ku qabta furmayda xumaya ya